taariikhda qofna wuu dhigaa, qofna wuu qoraa. Dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya dhulka waxay ku reebeen abaar dheeraatay iyo gaajo iyo baaba. Dagaalada iyo dilka waxay noqdeen kuwo magaalada dhexdeeda caado ka ah, waxaana bilaabatay inay madaxdii iyo qabiilada ay israadsadaan. Runtii aniga waxaan ahaa wiil boqortooyo, mana isdhihi jirin baaba'an iyo abaartan ayaa dhulkaada u dambeyn doonto. Maalin maalmaha ka mid ah anagoo safar dheer u soconna ayaa waxaa igu dhacday taariikhda hadda nolosheyda sidatan u beddeshay. Aabbahay wuxuu ahaa mid madax ah, wiil leh, aniga kaliya ayuu ka qabay, aadna wuu ii jeclaa, heer uu hantidiisa dhan uu aniga igu wareejiyay ayuu i gaarsiiyay. Balse maxaa dhici doono qof walba ma ogeyn. Xisaabtana igumay jirin maalin maalmaha ka mid ah inuu aabbahay lafihiisa iyo meydkiisa carrada korkiisa ay yaali doonaan. Laakiin wax kugu dhacayo 1000 sano ayay ka weyn yihiin. Wax walba waxaa sabab u ahaa burcadii soo weerartay safarkeennii dheeraa, kuwaasoo ii diiday xitaa inaan celin waayo koontaroolka fardaha ilaa aan dhulka ku dhaco. Hawaabo fardaha ii wad, anaa kaa waabinayo kuwaane. Iscali Aabbo. Xanuun badanaa, waxaan dareemayaa aabbo, 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 aabbo. Give me your hand! Wiilkaygu gacan sii, way badbaadi. I can't reach! Aabbo, aabbo, aabbo kuma soo gaar aabbo. No! Aabbo, qorigaadii soo dhiib. Aabbo, qorigaadii soo dhiib. Keen, iscali aabbo, iscali. Soo kor, soo kor, soo kor. Aabbo, wili soo. Intaas ka bacdina nolosheyda waxay noqotay mid maalinba maalin ka dambeysa sii madoobaanayso. Runtii aniga isma lahayn taariikhda noloshaada ayaa saan u fool xumaan doonto. Markii dambena waxaan go'aan ku gaaray inaan keligeyga aan isdilo, meeshuu aabbahay uu ku dhintana aan raaco. Laakiin maxaa dhici doona markii aan aniga nafsadeyda aan ku rabay waan isdili rabay, ayaa markii ugu dambeysay oo nolosheyda aan dili rabay nolosha ila macaanaatay. Buurtii aan isku dili rabayne waan iska badbaadiyey oo sidii ayaan buurta ku soo qabsaday. Waxaana meesha ku arkay katiinadii hadda ka horeeto aabbahay uu i siiyey oo intuu la dhiman ka horeeto meesha uga dhacday. Runtii aabbahay aniga sayid ayaan u jeclaa, noloshiisana sidaas ayay ku dhammaatay. Aniga asiga waa iska fiirsan jiray, aabbo kaleetana dunida iima joogin, asiga oo kaliya ayaan fiirsanayay.
Muhiimadda dhabta oo qisadan ku jirta ayaa waxay tahay wax walba oo kugu dhaca u samir oo u dulqaado, marnaba noloshaada ha goynin. Fadlan isoo dhaweeyo subscribe saara beelka tigniintana furta.